munaasabada waxay ku saabsan tahay siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo caalamku sida uu ahaa nabiga ka hor iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam sida uu caalamka u bedelay iyo quraanka sida uu tilmaamay ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku fi nihayati surati tawba laqad ja'akum rasulun min anfusikum waxa idin imaaday rasuul idin ka tirsan idinka bimaana idin ka tirsan waxay tahay yaani malag oo idin ka duwan abuuritaanka ama nooc kale oo khalqiga ilaahay kamid ah oo rasuul idin ka soo dhigay ma aha waa rasuul aad taqaanaan oo idinka idin ka tirsan oo aabi iyo hooyadii aad taqaanaan qul inama ana basharun mithlukum yuha ilayya marka waxa idin imaaday rasuul oo idinka idin ka tirsan tilmaamaha uu leeyahay waxa kamid ah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum yani waxa idin dhibaaya ayaa oo idinka mashaqaydun ku ah nabi aad u dhibsanaya ayaa idin imaaday waa tilmaanta koowaad oo nabi sallallahu alayhi wasallam lagu yaqaan oo ah in dadka ama bulshada dhibaatada haysata inuu ka dalqado oo yani in loo xalliyo oo jeclaan laha taas waa mid saddex labaad waa xariisun calaykum bil mu'miniin wuxuu aad ugu dadaalaa wixii maslaxadiina ay ku jirto hadaad mu'miniintiin wuu idin ku dadaalaa dadka aan mu'minka ahayna wuxuu la jeclahay inay soo islaamaan ilaa quraanku uu ka tilmaamo nabigu inuu ku dhawaaday naftiisa inuu khatar geliyo oo leeyahay fala'allaka baaqixun nafsaka ala aatharihim in lam yu'minu bi hadha al-hadith asafa iyo midka kale ah raufun yani bil mu'minin raufur rahim wana xariis badan yahay naxariistiisa badan waxa kamid ahayd yani muuqaal kasta oo nolosha kamid ah naxariis ayaa ka muuqanaysa hatta salaada marka qaar kood salaada inuu galo oo uu rabo salaada inuu dheereeyo ayaa wuxuu maqlaa ilmo yar oo ooynaaya marka salaadii soo gaabinaya asaga oo u turaaya hooyadii inay maqasho cunugaas oo salaadii ay ka waswaasto sidaas wuxuu loo yiri qofkii salaada imaam dadka u noqda salaada u fuudeeyo u soo gaabiyo maxaa yeelay waxa ku jira qof xanuunsan qof dan u saaxiiba intaas oo waxay ku tusaysaa inay saas ay tahay mid kale waxa soo qaadan aayad kale oo ah nabiga sallallahu alayhi wasallam imaashiisa inuu nicmo u ahaa adduunka oo dhan laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim ilaahay wuxuu mu'miniinta ku nicmaystay oo nicmo u siiyay nabiga markuu u soo saaray bimaana haddii nabiga la soo saari lahayn quraankan aan akhrisanayno iimaanka ilaahay aan rumaysanahay wadada cad ay noo muuqatay adduunka xaqiiqadiisa inaan fahamsanahay aakhira aan rumaysanahay adduun iyo aakhira ay noo hagaagayso sidaas haddaan u raacno ma aynan garaneen meel ay naga jiray ma aynan fahmeen wa innaka latahdi ila siraatin mustaqim siraati illaahi alladhi lahu ma fi samaawaati wa ma fi al-ard nabiga dadku waxa ugu yeeraysaa wadadii ilaahay marka wadadii ilaahay nabigaas dadku ugu yeeraya soo bixinta ilaahay uu soo bixiyay saas ay noo ahayd intaas kadib waxaan kala soo qaadanaynay bisha markay dhalato rabiul awwalka ummadana Soomaalida culimadeennii hore khayr Allah siiyay si ay u tacliimiyaan dadka oo ay diinta ugu tacliimiyaan bilihii carabiga ahaa ayaa bil walba munaasabada ku jirta ayay ugu magac dareen sanadka bilowgiisa marka la joogo oo sanadka hijriga ah bilowgiisa marka la joogo bisha ugu horeysa waxa la yiraahdaa muharram bisha ku xigta waxa la yiraahdaa safar bisha saddexaad hadda aynu ku jirno waxa la yiraahdaa rabiul awwal sidaasay carabiga saas ku yahay rabiul thani jamaadul awwal jamaadul thani rajab saas ugu socda Soomaalideena magacyo waxay leedahay maxalli ah ama local ah oo bilahaasi si dadka loogu xiro munaasabada ku dhex jirta loogu magac daray bisha koowaad markii la joogo bisheen ku jirnaa markii la waxay dhahay waxaan joognaa bishii zakada bil zakaa bilatay bil zaka maxay ku tusaysaa ummadaha marka taariikhdooda la baarayo dhaqamadooda iyo turaadkooda iyo waxa yani taariikhan ay u lahaan jireen waxa lagu ogaadaa dadkaas waxay ahaayeen bimaana waxay dhisan jireen hadallada ay ku hadli jireen يعني سوي نولان جيرين waxay cadeynaysaa dadkani waxa ay yihiin saas daradeed markii midalan aad maqasho bishii zakaa yaa bilatay oo dhaqan ahaan Soomaalida ay bisha zakaa ugu bixiyeen maxaa ku soo baxaya dad zakaa bixinaya macnaheedu inay yihiin dad muslima oo hadii ay zakaa bixinaynin bisha koobaad ee sanadka wareegiisa ma ay zakaa u bixiyeen muslim ay ahaayeen marka zakaa u bixiyeen si dadka xoolaha haystay ay bisha uga dhumin oo mar walba xusuustaan bishee lagu jiraa zako markay dhawaan ku baato zakadii way iska bixinayaan way soo wada markii rabiul awwal soo gaaray ayaa waxay u bixiyeen bisha rabiul awwal bishii mawlidka bishii dhalashada nabiga u bixiyeen taas maxay tahay marka siiradii loo akhrinaya caruurtii maxaadaro loo qabanaya waxa la siinaya waxyaabo macmacaan oo lagu jeclaysiinayo munaasabada iyo arrimaha ayada bishii mawlidka loo bixiyay marka bishaan ku jirna hadii la qofka jidka iska maraayo ku dhahay walaal inuu yahay rabiul awwal dadka ama iskoolada ama jaamacadaha
ku qorto oo rabiicul awwal loogu qoro moogi dadweynaha caadiga ee bannaanka iska maraya bishii mawliidka lagu jiray ay yaqaanaan marka dadkii u bixiyay bisha mawliidka ee hore ee Soomaalida ah waxay ku tusaysaa inay ahaayeen dad siirada dadka u dhiga bisha markii la gaaro dadka bara inay tahay bishan inay tahay saas marka in bisha si gaar ah loo sheego marka nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinta isniinta markuu soomay waxay maxay u soontaa wuxuu waa maalinta aan dhashay yawma wulidtu fi waa maalinta aan dhashay marka maalinta uu dhashay iyo bisha uu dhashay calaamad waxay u tahay taariikhdiisa laana quraanku wuxuu uga sheekeeyay nabiyada ilaahi suuratul an'am ilaahi 18 nabi ayaa la isdaba dhigay وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم انت أمرك الآخرين وعليني أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي كواس رسول الشيء من عدد الكيسان وكو إله نونيه كوا صرت كدايو سورة مريم وحلقة شيكي انت واذكر لي آخرين واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إدريس واذكر في الكتاب موسى يعني واذكر معناه العلوية هاي وحسن حاليا في صلاة الحسن وكشيكي دكتور حاليا يعني كلمة انت يعني الله معناه يمين بين السكة الأوقاتين حسن معناه يسمع ذلك قارة وحيسوق الضايم إنه اللي بعيد لنا هاي مولدك عيد سدحات مياه ما عيد سدحات معه وحواي وذكرى مولدي ذكرى معنا معك ذكرى وحسيتان نبي عدي لها واذكر حس في الكتاب وحال حسطها مريم يا نبي عيسى دلشين كسر كالي مركز إذ انتبه من أهل مكانا شرقيا فاتخذ من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا هذا نوع حال مركز النبي عيسى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا ورفعناه مكان عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم مركز حسكو وتاريخ كشاكين تاريخ مركز لغا شاكين الله برتنا قف وحي لبر وكديدا لكن دي شبل اسكي يراهدو كو اذا عدها ايدها حييسين waxay dhahan hadaad badeeca keento oo bakhaar shuk ku siiso oo cid aad u sheegin dadku may ku riyooni inaad alaab keento hadaan loo sheegin maana hadaan dadkii wax looga sheekaynin dadku say ku raaci oo say ku ogaano soo looga sheekeeyo ma kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam akram an-naas khalaqan wa khuluqa nabigu saasu aha arda'atu halimatu saadiya zaani saasu yani waa laga sheekeynaya siirada laga sheekeynaya way jeclaanayaan marka dadku marka bisha marka inoo soo gasho yeyna noqonin bishii khilaafka ee ha noqoto bishii isjacaylka baa nabi sallallahu alayhi wasallam isjacayl ayuu inoo la imaaday kulligeena Soomaali hadaan nahayna bal mid u weydii ruux aan nabiga jeclayn inuu kuma jiro kii gaaloobay asaga waa gaar mugday kaas ma tirsanay indhaga qof gaaloobay oo muslim baahin ka asaga shaqo kuma leeyahay laakiin qof muslim ah bal weydii adiga nabiga ma jeceshahay allahumma salli wa sallam alayhi horu kala soo boodaya ruux aan jeclayn male maxaan isku haysanaa marka jacaylka habka loo muujinaayo yaa ku kala duwanahay marka nin walba waxa leeyahay nabiga nin walba afkiisa kugu amaan Soomaa marka hadii nabiga sallallahu alayhi wasallam aad soo jeclaato adigu walaalka kalena uu si kala u jeclaado jacaylkuna ogaada waa wax gudaha ka soo go'aya asxaabta radiyallahu alayhi maalintii badr dagaalka la galay yaa nabiga oo safka toosinaya yaani wuxuu arkay hor u soo yara baxsan safka ul yara oo haystay oo safka uu ku simaayo gadaal intuu ugu riixay yaa wuxuu ku istawi ya sawaado istoosi safka gal markaas wuxuu aw jactani ya rasuulallah rasuulka ilaahay waa xanuujisay oo shay igu durtay way xanuujisay aan ka gudto aan ka qisaasto ilaahay xaq iyo wuxuu kula soo diray cadaalad saabtu way yaabeen mana ilaahay baa laga gudan karaa laga qisaasan karaa wuxuu yiri waxaan rabaa inaan ka gudto nabigu uu makani naftiisa wuxuu iga gudso markaas wuxuu marka aniga oo shay igu duraysay oo dib u noqay dhaysay calooshayda meesha iga taabsiisay mara ma saarnay adna marada iska qaad maradaada oo calooshaada oo bannaan aan rabaa inaan ku duro dadkii way yaabeen qofkaas wuxuu aan miga gudsatido nabiga inta iska dhaafto wuxuu yiri adigu waxa ugu dhufateen aniga nabiga ku gudsana nabigu u bani calooshiisa intuu isku duubay oo uu dhunkaday yaa wuxuu rasuulka intaan baarabi wuxuu maxaa ku xambaaray inaad saas yeesho wuxuu yiri dagaal hadda galeynaa waxa la noqon doona lama ogo haday tii rabbi ii timaado oo dagaalka inaan ku dhintay noqoto waxaan rabaa jirkayga iyo jirkaaga oo ugu dambaystii istaabtay inay tii rabbi ii timaado
markaas nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu qofkii rabay ahlu janna inuu arko ninkan ha arko fiiriyo jacaylku nabi sallallahu alayhi wasallam maalin nabi sallallahu alayhi wasallam intuu istoobay oo dhiig iska keenay yu saxaabi u dhigay wuxuu bax soo astur xagga loo kala wareegtay si sharooba amal wuu asturay markuu imaaday waxay soo asturtay hawa soo asturay wuu fahmay marka xageed ku soo asturtay meel aan waliga deegaarkeena ku soo asturay nabi sallallahu alayhi wasallam qofkii rabay ahlu janna inuu arko ninkan ha fiiriyo macnaha maxabada nabi sallallahu alayhi wasallam ee jacaylkiisa marka yaani jacaylka nabigu waa wax wujdaani oo gudaha ummadana wada jecesha maanta waxaynu joognaa marka caalam nabigeena saa u jecelayn intii karkateer laga sameeyo oo suuraxu loo sameeyo sida midna faransiiska oo kale oo ka dhacaysay macallin kuleen macallin ma muxuu macallin kay macallin waa midka ardaydiisa waxyaabaha ay rumaysan yihiin ilaaliya laakiin macallin aan shucuurka dadka ilaalinaynin wuxuu yidhi inta muslimiinta ah waxaan rabaa inaan tuso ardayda aan muslimka ahayn suuradii nabi maxamed aan tusayaaye inta muslimka iska baxeen kuwan aan tusayaaye oo maxaa u tusaa kuwan aad ka rabtaa inuu wuxuu rabaa fool xumeeyo oo suurad fool xun inuu ku sameeyo taas waxba kagama qaadayaan ilaahay baa kaga filan innaa kafaynaaka almustahziin ilaahay baa yidhi kuwa kugu jeesjeesay ilaahay baa kaaga filan nabiyow ama nabigu marka ha joogo ama ha dhinto ilaahay ayaa kaga filan nabiga ayaa ilaahay baa karaamay ilaahay baa jecel innaa kafaynaaka almustahziin kuwii baan tusaaya buu yidhi sidaad maqasheen wiil yaroo dhalinyaro ah oo shiishaani ah ayaa dilay kii oo nabiga kartoonkiisa keenay markaas waxay ku leeyihin muxuu u dilay wuxuu ka soo jeedaa wiilkaas yarka xuquuqda qofku inuu ra'yigiisa muujisan karo nabi dad ay rumaysan yihiin nabigoodu inuu yahay in la caayo miyaa ra'yi la muujinayaa waa nabi la caynaaye ma iska dayan ayagu sooma dhaha nabi ciisaan raacsannahay innaga muslimiin haddaan nahay nabi ciise miyaan cayn karnaa ma cayn karna nabi ciise maxaa yeele nabi ciise iyo nabi maxamed waa isku laba nabi innaga maba kala saaraynaba laa nufariqu bayna axadin min rusuli rususha ilahi oo dhan ambiya ilahi bay noo yihin ayagu ma yeelaayaan nabigeena marka ka sheeg marka kuwaas oo cadowga ay noo joogo oo sidaas nabiga u caynaayo haddii dadkii cadowga ahaana ay saas yeelaayeen oo nabiga caynaayaan innagii muslimka ahaynna markii bisha la soo gaaro aan isku qabsanno mawliid ma la dhigaa mise ma la dhigaayo beri aan bay noo jooga sheega idii sheegaya dadkan oo ma arkin oo dadkan waxaa dhihi jiray shaacir waxaa leedaha kuwa qiseeyo oo sheekeeyo ceelgaabta iyo yani ku yani qisooyin ay sheegayaan dadkay kaga qosliyo wax saas ah marka mid shaacirkaas ah yaa mar oo 93 faransiiska waxay joogeen baydhabo ciidamadii waxay ku jireen caalam ka imaaday ee Soomaali barigaas joogay shaacirkaas ayaa meel dugsi quraan aan ku leenahay agteenu noo imaaday markaas uu galabtii meesha iska camirtaa dadku u sheekeeyaa lacag ka yar aruursada gabar iska lahayd marka dugsiga aan wax ku dhigno oo quraanka iyo tajwiidka aan ku barno yaa waxay tiri iga leex meeshan iga fogee meelahaas kale la aad waxaan aad akhrinaysa anima ogolay anu u imaaday markaas wuxuu yiri ani markaan dugsiga agtiisa imaaday oo aan arinta meesha ku sameeyay dariiqooyinkii aan saaxiibada ahayn waxay dhahan kaas ikhwaanu noqdo nimankaas agtooda wax ku akhriyaan gabar meesha aanan waxay leedahay dugsiga agtiisa iiga dheerow ani marka wuxuu dhexdaan ka baxay afmaameyntu ka wuxuu yiri haddii haanaasnaha i buriyaan isigna i buriyadaan ma ana faransiiska kabay haddii kuwaasna yeryaan idinkana eridaan ani faransiis baan ku darsan xageen aadaa marka waxaan ku keenay weeyow haddii faransiiskii nabigeena uu caynaayo innagana bishii mawliid marka la gaaro innaga dhexdeena isku khilaafayno nabiga arrimihiisii xageen aadaynaa macnaha marka maxaa la rabaa bishan inay noo noqoto bishii maxabada bishii is aruurinta bishii is jacaylka laana nabiga sallallahu alayhi wasallam jacaylkiisa waa wada jecelnahay laana qof aan nabi jeclaaninba muslimba ma aha wax kaan sax ma jiro salaada aan tukanayno adxiyaadkii waa in salliga lagu soo daro haddii xataa la geeriyoodo oo tacsiig qof aan ku tukanayno janaasada markaan faatixada akhrino nabigi ku xiga allahumma salli ala muhammad wa alihi wasallam hadii qofka la duugo oo qabriga la geliyo su'aalaha la weydiinayo markii ilaahay la weydiiyay kadib man rabbuka markii la yiraahdo wama nabiyuka ku xigta marka ruuxu nabi diidan ma jireen farsamo kale ayna hayseen aan si tartiib ah intaan u hadalno aan jacaylkii nabiga aan jeclaanay innagana isku jeclaano laana suurtagal ma aha inaad ilaahayna jeclaato rasuulkiisana jeclaato intii ilaahay rasuulkiisa kula rumaysnayd ee walaalaha ahaan aad jeclaan weyso faransiiska ma aadeen marka xagee aadeen adiga marka
marka waxaan rabaa muuminiintu inay iskaashtaan inay walaalo ahaadaan ayagu inay isjeclaadaan saasaa loo baahan marka ilaahay subxaana wa tacaala ummaddeena khayrka ha waafajiyo siirada iyo ka sheekaynteedana sababaha inoogu noqoto inaan soo ceshanno cizzadii muslimiinta ay lahaan jireen laanna nabiga sal allahu alay wasalam xilli wuxuu imaaday bini aadamka oo dhan ay khatar ay ku sugan yihiin ilaahay baa ku badbaadiyey bini aadamka siiradiisii iyo jidkiisiina wuu inoo yaallaaye innagoo walaalada soomaali oo muslima intaan tartiib u wada hadalno aan dhahno saas aan yeelno saas aan yeelno saas aan yeelno nabiguba saasuu yeelay kadibna aan waddankeenna suu nabad u noqon lahaa aan ka wada shaqayno cid aan wax ka sugaynaysan jirin oo hadda ogtiino intaasoo sano unbaa dadkeenna kolba la isku diraa maalinba koox la isku diraa kooxbasaan la keenaa waa la isku rafaaday waddankeenniina dib u dhac ayuu taas ka qaaday